wuxuu hogaaminayaa raxantani 6 sannadood ama uu yahay boqorkood ama qaboojiyaha holacyada aan dawo kale lahayn. Marka ay tahay in la ugaarsado xayawaan awoodan oo kale leh, waa inay bedelaan istiraatiijiyadoodii hore. waa inay ubadka yaryar iyo carruurta ay ka guraan isla goobtani, kadibna ay soo dhigaan meel ammaan ah iyagoo isku tiirsan ay dagaalka wada galaan. hadafku waa in la ugaarsado isla buffalo. kuwana maaha kuwa dhayal lagu ugaarsan karo ama kuwa ciyaara. mid kastiba waxay gashay isla goobaha ay ugu dhuuman lahaayeen si ay ugu soo dhawaadaan. waxaa lagaga soo dhawaanayaa dhinac kasta ama aangaladii ayaa lagaga soo dhawaanayaa. dagaalka hadda waa la bilaabay oo waa la eryanaya. kuwii kale way arkeen oo durba way kala carareen. hadafku waa inay mid keliya doortaan. dusha ayaa durba laga koray. taasi marka ay joojiso, kuwa kalena si degdeg ah ay ugu soo gaari doonaan. mid kastaba mid ma ugaarsanayso markii hal mar la qabto taas ayaa awoodda la iskugu wada geynayaa. waa la hubsaday hadda inay hayso. mid kastaba si tartiiba ayay ugu soo dhaqaaqaysaa, iyagoo weliba hubo kartideeda iyo awooddeeda inayna ka baxsanayn waxa ay gacanta ku dhigto. kani waa qadada maanta ama kala dili doono. dhammaan raxanta oo dhan waa inay goobtani timaadaa. dhuka ayaa la dhigtay. xataa kuwa yaryar way imani doonaan si ay u helaan nasiibkooda ama qaybtooda ay u cunaan. waana tii ugu khibradda badnayd ama ugu awoodda badnayd waxa uu dishay ama dagaalka u qaaday. sidaasna muddo ayaa lagu qadi doonaa ama in toddobaad ku dhow. waxaa jira halis kaloo ka darantii ay wajaheen oo kaga imanaysa libaaxyada maamulka haya, kuwaas oo iyagu isku dayaya inay ka qaataan ama ay la wareegaan waxay dishoodaan gooluhu. markii laga tago xuquuqda biyogelin ahaaneed, waxay la kulmaan ama ay awood kaga qaataan waxyaabaha ay dishoodaan isla raxamuhu, oo ma aha kuwa u ogolaada inay cunaan ka hor inta ay iyagu cunin.